taketones.com. haddii aynu sharaxno qaybihiisa amba waxyaalaha badan uu kala baxo waxa laga yaabaa qaybta guriga ku dhacda qofku inuu ka cawdo ugu badnaan meeli uu ka cabanayo waxa weeye waa laab jeex yani waxa koonaya laabta huraysa amba laab olol amba habeenkii markuu seexdo inuu calooshi cuntada soo noqonayso oo ay dareemayo afka ka dareemayo amba inuu yeesho inta soo noqoto guriga cad marayso uu dareemayo qufac iyo riixayo fara badan ka caloosha waxa laga yaabaa qofku inuu yeesho markuu wax cuno cuntada uu cuno cuntadu dhibayso oo deetana qofkaas uu isku dayay markasta inuu iska gaajoodo oo aanu cunto fara badan cunin deetana qofka ay ku dhacayso inuu dhuufto oo miisaankiisa soo dhaco maadaama aan cunto cunahayn hoos haddii uu si dhanacno mindhicirka markay ku dhacdo gaasrigu wuxuu yeelanayaa qofku inuu markasta isku dayo inuu cunto fara badan cuno oo uu iska ilaaliyo gaajada leeno gaajadu aad buu u dhibaysaa qofka marka mindhicirka gaasrigu kaga dhacdo deetana qofkaas uu miisaankiisu siyaadayo habeenkii oo kale saqda dhexe uu soo toosayo isagoo calool olol yeelanaya ama caloosha ololayso deetana uu isku dayo amba caano amba wax inuu cabo amba inuu wax cuno waxyaalaha ugu badan u kala saari karayna waxa weeyaan saddexda qaybood qaybta guriga iyo caloosha iyo mindhicirka runtii dadkeenu say ka qabaan xanuunkani maaha xanuunkani waa xanuun qofku isagu lifestyle-kiisa ama nolosha siduu u nool yahay ku xidhan oo kaliya inuu wax ka bedelo waxyaalaha ugu badan ee lagu tacaali karay waxa weeyaan qofku lifestyle-ka dawadu waxa ma tarto waxaan waxa weeyaan waxa kala batay ICD caloosha ay soo saarisay iyo ilaalintii caloosha laga ilaalinayo dahaarka marka waxa muhiim ah qofku inuu lifestyle-kiisa wax ka bedelo si wax ugu bedeli karaya qofka hadduu sigaar cabo uu sigaarka iska daayo oo sigaarku wuxuu siyaadinayaa inuu qofku nabar ku sameeyo qofku hadduu cuni karo wax laga yaabo dad cuntooyinkan spicy foodska amba waa inuu naqaano basbaaska waxaan sinjibiisha filfisha waxyaalahaas oo dhan qofku waxa weeyaan xanuunka ku sii siyaadinayaan waxa kaloo aad dadkeenu isticmaalaan fried foodska ama waxyaalahan la shiilo waxay doonaan noqdaan suqaarka beerka kaliyaha waxaan saliid karkaraysa saambusaha waxyaalahaas oo dhan waxay aad u kicinayaan waxay tahay qofka gaasriga waxa laga yaabaa waxyaalahan beaniska amba ha noqdo harako amba ha noqdo digir amba ha noqdo fuul iyaguna waxay kicinayaan qofka ay gaasriga ku kicinayaan timirta kamida waxa kamida maxay tahay malabka waxa kamida sharaabadan soo hale waliba khaasatan waxa ugu badan sharaabkan quraarada ku jira maangaha oo qofku laabdalac fara badan ku keenaya intaas waxa weeyaan qofku lifestyle-kiisa hadduu waxyaalaha iska ilaaliyo oo waxyaalahan cuntada bariiska iyo baastada maxay tahay waxyaalahan dalka ka soo baxa galleyda iyo waxa uu cuno calooshiisa isku dayo inuu socodsiiyo waxyaalaha sigaarka iyo waxa uu iska daayo qaadka waxa laga yaabaa qofkaasi uu dawadana qaato inuu qofkaasi uu keeno response fiican laakiin dadka badankoodu waxa weeyaan waxay doonayaan inay dawadii qaataan noloshiina aan waxba ka bedelin taas waxa weeyaan waa nabar dusha laga dhayo oo waxa qofkii isugu hadana ku soo noqonaya isagoo u baalkile marka waxyaalaha ugu muhiimsan ee gastriga waxa weeyaan waa xanuun lana noolaan karayo kuna xiran inaad fahanto waxyaalaha kuu kicinayo waxyaalahan kuu kicin inta markaad isku eegto qof waxa weeyaan noloshiisa caadiga uu noolaan karayo uu iska ilaalin karayo taketones.com. taketones.com. taketones.com.